gabadha wejiga la barariyey ee after iyo beforteeda aad u maranayso bini aadan marna xawayaan oo walaalkeed weliba sidaa u galay ficil gabeed maaha, ficil rageedna maaha. waa xaqiiqo waxaa sax ah gabadhi sharafteedu inay walaalkeeda ay tahay ama aabaheed ama dee dhashada mustaqbalka inay asturnaato oo ay isxafiddo na ay tahay waxa keliya walaalkeed uu farxad ku heli karo ama uu ku faani karo. sababtoo berri gabadha marka la qaawiyo ama xumaanteeda lasoo bandhigo qofka ugu horeeya argudashadeeda ku fikiraya waa walaalkeed. laakiin dilka noocaas laa xawla walaa quwata illaa billah. 3 gabdhood baa la dhashay aniga, mid waa Marwo, 2 waa yaryar, 3 waa iga yaryar. gabadha haatan Marwada Ilaahay xafiday Yasmiin waan xasuustaa macalinka iskuulka ayaa qaraacay. teenage baan ahaa marka, iyaduna iga sii yartahay 15 meelaha sano. gacantan waxaan arkay nabarkayga yaal marka, waxaan nabarka ayaa kugu dhuftay. markaasay tiri macalin Nadiir reer Boosaaso badankood way garanayaan. aabbaha iyo hooyaday gurigay joogeen. macalin Nadiir sanadka uu walaashay qaraacayay intay habla isqabteen, sanadka ka horeeya aniga siduu ii qaraacayay waan suuxay. asbuuc baa qandhi ahays, laakiin waxaa ma oran. sanadkii xigay iskuulka gabdhaha loo wareejiyey, anigaa walaashayo garabka uli kaga sawiranta arkay. hooyo aabba meesha fadhiya. waan carooday, waan isleeway. waa ina allah dhalay anagaa naloo soo diray ninka. almuhim aniga inuu qaraaco waxaan xasuustaa maalintii qaraacayay nin aada u dhib badan baa dhahay. intii garanaysa Boosaaso way garanaysa. caruurta kaleeto ha ku qoos qaadato wuu ii qaraacay, laanna I believe iskuulkaba nin iga dhib badan ma jirin. buum intuu igu soo raabay buu qoraxda dhigay. ma kala jeclay, macallin baan idhi goos iyo ficil xun uga fikir, laakiin nabarka yarka ayaan walaasha ku arkay. marna inaan daayo kuma fikirin. 3 wiil baan soo kaxaystay. iskuulka meel xoogaa u jirto dhanka xaafadiisa markuu socdaan uga heban fariistay. markuu arkay wuu dareemay marka inay xaaladdu sidii ka duwatay. ilaa shalab ahayd markuu walaashii qaraacayay. maalinta annaga macallin u noqonay anigii 3 wiil. ku dhawaad 2 saac korkiisaanu taagnayn. ula fiicfiicna waa wadanay. waan u sheegay, waxaan ku iri macalinka, waxaan ku iri macallin aad aniga disho dee nin baad la tagiyo ama dee ardaydaada edbiso, laakiin dhaawac weynaan ku muuqanaya iyo wax jirkeed u daran qofka adigu ma dhalin baan ku iri. weliba waa dumar, waa gabar. macallimiinta sidaan ognahay wadankii ilmahaas waxay bay u dilaan, weliba arxan daraa.